السلام عليكم waxaa badankeyn laga yaabaa in aan aqoon u leenahay ama aan dusha sare ka naqaano magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waa wax iska macquul ah in qaar anaga naga mid ay ku nool yihiin ama ay ku fikirayaan in ay tagaan maalin oo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga haddaba haddii aad xiiseynayso inaad wax badan ka ogaato taariikhaha caalamka iyo tan magaalooyinka fadlan like saar una share garee saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo qalbi wanaagsan sida adigoo kale tani waa magaalada Istanbul sidoo kale waxaa loo yaqaanaa magacyada kala ah Qusdandiin, Byzantiin iyo Istanbul waa magaalada ugu weyn dalka Turkiga sidoo kale waa magaalada toddobaad ee ugu weyn caalamka marka loo fiiriyo dadka ku nool oo tiro ahaan kor u dhaafaya 15 milyan oo qof Istanbul waa magaalada dhaqanka ganacsiga iyo aqoonta dalka Turkiga waxa ayna ka kooban tahay 39 degmo magaalada Istanbul waxa ay ku fidsan tahay marinka Bosforka oo dhinaca koonfureed ka xiga badda Madow iyo badda Marmara halkan waxa ka fahmi karnaa in magaalada ay tahay jasiirad oo ay badda ku wareegsan yihiin Istanbul waa magaalada kaliya ee ku kulmaan laba qaaradood iyadoo ku kala taal qaaradaha Aasiya iyo tan Yurub Istanbul waa magaalo taariikhi ah waxayna caasimad u soo noqotay boqortooyooyin badan kuwaas oo midba magac gaar ah u la baxay sida boqortooyadii Roomaanka boqortooyadii Byzantiiniyiinta iyo khilaafadii Cusmaaniyiinta halkan waxa ka fahmi karnaa ahmiyadda baaxadda leh ee u lahayd magaaladan boqortooyooyinkii soo maray iyo sida ay u qiimeey jireen sababtaas darteed ayaa sanadii 2010 loogu doortay magaalada caasimadda aqoonta Yurub wadaagaan dadkii ugu horeeyay ee dega magaalada Istanbul waxay ahaayeen Greega kuwaas oo magaalada u bixiyay Byzanta haddii aad dib ugu noqono xilligaas taariikhda waxay ahayd 660 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam taas ayaana ka dhigan in magaaladan ay dhisan tahay 26 qarni intaas kadib waxa magaalada la wareegay boqortooyadii Roomaanka kuwaas oo kala wareegay Greegii dhisay ayagoona u bixiyay magacyo badan balse magaca ugu xooganaa wuxuu ahaa Qusdandiin waxaana loogu magac daray boqorkii aasaasay magaalada kadib qabsashadii khilaafadii Cusmaaniyiinta ee qabsadeen magaalada Istanbul qarnigii 15aad ee miilaadiga waxay u bixiyeen magaca Istanbul oo micnaheedu yahay magaaladii Islaamka balse markii dhacday khilaafadii Cusmaaniyiinta Turkigana uu noqday jamhuuriyadda Turkiga ayaana magaalada loo bixiyay magaca ay caanka ku tahay hadda ee Istanbul marka aan dib ugu laabano taariikhda magaalada Istanbul iyo sida ay muslimiinta ku qabsadeen nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha aatee muslimiinta wuxuu ugu bishaareeyay in ay furo doonaan magaalada Qusdandiin asigoona amaanay hogaamiyaha furo doona magaaladaas sidaas darteed muslimiinta ayaa in muddo dheer ah ku taamay furashada magaaladaas oo ay muslimiinta ka taliyaan waxaana nasiib u yeeshay in uu furto magaaladaas Maxamed al-Thani kaas oo helay magaca Suldaan al-Faatix kadib furashada magaalada wuxuu ku beegnayd sanadii 857 taariikhda hijriga waxaan halkan ku eegi doonaa macluumaad u gaar ah magaalada Istanbul macluumaadka u gaarka ah magaalada waxaa kamid ah number 1 magaalada waxaa ku yaala marinka Bosforka oo xiriiriya biyaha badda Madow iyo badda Marmara 2 magaalada waxaa lagu tiriyaa mid kamid ah goobaha ugu quruxda badan adduunka waxayna soo jiidatay indhaha caalamka waxaana sanadkii u soo dalxiis tago malaayiin qof oo ka kala yimaada dunida daafaheeda magaalada waxaa ku yaala mid kamid ah masaajidda taariikh ahaan ugu weyn adduunka waana masjidka Hagia Sophia kaasi oo marka hore ahaa kaniisad balse Suldaan al-Faatix ayaa u bedelay masjid mar kale ayaa laga bedelay masjidnimadiisii oo laga dhigay madxaf sanadii 1934 xilligii dawladii Calmaaniyadda ahayd balse sanadkii hore ee 2020 86 sano kadib maamulka Erdogan ayaa dib ugu soo celiyay heybadiisii masjidnimo kana dhigay masjid magaalada waxay ku taallaa waqooyi galbeed ee gobolka Marmara waxayna ku fadhisaa masaafo ahaan 183,092 kiiloomitir laba jibaaran waana badka guud ee magaalada cimilada magaalada waa mid iska dhaxdhaxaad ah waxaana saameyn ku leh maadaama ay tahay magaalada mid isku xirta laba qaaradood magaalada Istanbul waxaa ku nool dad diimo kala duwan heesta balse waxa ugu xoog badan diinta Islaamka halka ay jiraan dad aaminsan diinta Masiixiyadda iyo Yahuudiyadda sidoo kale luqadda rasmiga ee looga hadlo magaalada waa luqadda Turkiga Istanbul marar badan waxaa ku dhiftay dhulgariir baaxad leh kaasoo naf iyo maalba galaaftay balse waxa ugu weynaa midkii dhacay xilligii dawladii Cusmaaniyiinta ama khilaafadii Cusmaaniyiinta waqtigan la joogo magaalada Istanbul waxay martigelisay Soomaali badan oo halka u jooga siyaabo kala duwan haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka fadlan like saar una share garee saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo qalbi wanaagsan sida adigoo kale kuna soo biir beedkeena mahadsanid